shirkadda Sal Software oo ah shirkad xarumo iyo barnaamijyo kala duwan ku leh guud ahaan gobolada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya ayaa waxay maanta magaalada Tani Woodward ay ka daafurtay barnaamij cusub oo markaasi dadka wax loogu bari doono aqoonta tiknoolajiyadda casriga ah waxgaradka dhalinyarada aqoon-yahanka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Tani Woodward ayaa si weyn u soo dhaweeyay muhiimadda ay leedahay xaruntani ayagoona sheegay markaasi inay tahay xaruntani mid baahi weyn loo qabay ugu horreelkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha guud ee shirkadda Sal Software injineer Maxamed Jaamac iyo injineer Jaamac Jidaalo isaguna kamid ah injineerada shirkadda waxayna u mahad celiyeen bulshada reer Woodward iyo sida ay u soo dhaweeyeen iyagoona dhanka kale ka hadlay muhiimadda ay reer Woodward leedahay xaruntani software ee magaalada Woodward haddana marka sawir yar ka bixiyo Sal Software maxay tahay waa maxay Sal Software hadii lagu weydiin maxay ka jawaabeen Sal Software waa shirkad IT ah laguna aasaasay magaalada Laascaanood xarunteeduna ay tahay Laascaanood waxaan aasaasnay 2010kii bishii tobnaad ee October kowdeedii Sal Software fikirka magaca iyo sameynta aanu baalaha markii hore laakiin waxay la aasaasay oo ila dhaqan galiyay afar dhalinyaro ahaa oo aan marnaba aan la ilaawi doonin taariikhdu xusi doonto noo soo dhaweyseen isla markaana mas'uuliyiintii kala duwanaa sida wax hagar la'aanta ay ugu hadleen ama ay u baraarujiyeen ma horta aad ugu mahad celinayaa IT-ga wuxuu yahay aad baa loo sharaxay iyo halka lagu socdo codsiga su'aasha uu weydiiyay mas'uul Sir Saciid oo aadaadiyaha xafladan oo aad ugu mahad celinayo ee ku saabsan barnaamijka Sal Software ay ku deeqday secondary-ga iyo dugsiga hoose dhexe ee magaalada Woodward control doona dhammaan ardayda iyo xaaladooda dhan su'aasha codsiga weydiiyay waxay ahayd haddaan khaldanay ma noo tababaraysaan cidii ku shaqayn lahayd programkaas jawaabtaad naga filaysaan waa ha diyaar baan u nahay inaan idin tababarno qof iyo laba iyo saddex iyo afar inta diyaar u tihiin inaan idin tababarno diyaar baan u nahay hawshaas taas waxaan inta ay raacdaa aan raayna fursada uga faa'iideysto xarunta Sal Software Laascaanood oo kale ama xarumaha Sal Software ee daafaca caalamka jira hal policy baan ku shaqeynaa ama hal istaraatiijiyad baan noo jeexan ku shaqeynaa waxaa jira dabcan fee yar oo ardayda laga qaado dabcan meel walba fee ku socon sax kalma socon karaan feegaas waxaan sameynaa horta ardayga aan awoodin inuu feega iska bixiyo danaynayana inuu cilmigan IT-ga barto bilaash baan ku dhignaa taas waa ballanqaad aan u sameynay ardayda oo dhan ka qof kasto aan awood u lahayn inuu iska bixiyo feega macalinka iyo gudoomiyaha Sal Software magaalada Woodward maqlaya wuuna joogaa waa sidan ku shaqeynaa free waxaan u malaynayaa kulley Sal Software ragii oo dhan way wada hadleen wixii meeshii joogay oo dhan waxa la idin sheegay maanta oo dhan kulley waxaan u malaynayaa reer Woodward way ka faa'iideysan doonaan Jidaal Foundation way hadashay waa la idinka warbixiyay waxa la keenay maanta ama iskuulkan ama hadafka loo furay waxaan u malaynayaa ardaydu kulley arday badan kulley anigu way inay ka soo baxayaan baan u malaynayaa mustaqbalka dhow oo la doonay in aad maaragtay ardaydaasi ay arday noqoto anfacda reer Woodward kulley reer Woodward waxaa la doonayaa in ay banyaal dhalaamo cune magaalooyinka fara badan ee Balcad Geedeer intaas oo dhan ay gaarsiiso waxa halkan lagu bartay laga furay magaalada Woodward iyo madaxda inoo timi iyo fuuday inoo timi waxa aan kula talinayaa qolada reer Woodward aynu horumarka iyo aqoonta iyo cilmiga aynu ka hormarino Ilaahay cabsidiisa iyo taqwadiisa marka hore waxaan leenahay Sal Software iyo Jidaal Foundation oo maanta aan u malaynayo sida ay ka dhawaajiyeen waxaanay haddeer sheegayaan dad u garanmayna laakiin waa marka la guda galo way idin leeyahay waxaan marka hore aan leenahay way soo dhaweynayna hal inoo darooga ganacsiga mooyaafad kale waa IT waxay ku tacalluqaan barnaamijkan computer waa shanta nin ee adduunka ugu lacagta badan afar kamid ah hal inoo darooga ka ganacsiga mooyaan afarta kale waa IT inaan idinkaga yaabiyay IT-gu meesha maray maanta waxaa lagu guuleystay oo la ogaaday kumanaan sanawaad in garaafka dhulku uu hayo codkii iyo muuqaalkii lagu wada hadlay xafladina halka ku qabanay saas oo haysa
si kastaba ha ahaatee magaalada tani wudhur ayaa ahayd mid muddadanba ku tallaabsanaysay horumaro kala duwan oo dhanka waxbarashada ah. Sakariya Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka caalamiga ah ee Som News, Wudhur.